أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين، رحمة الله للعالمين، إمام الأنبياء والمرسلين، سيد الأنام، خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجهم واتبع هداهم إلى يوم يبعثون. walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullah. waxaan ballan qaadnay bay ahayd inaan 2 jeer asbuucii aan ku kulmi doono mowduucyadii kale iyadoo ka duwan amba darsigii aan qaadanaynay ka duwan oo ah inaan isla qaadano duruus ku saabsan dhismaha daadka amba qofka bini aadamkii siduu naftiisa u dhisi karaa si uga hortagi karo jiradan coronavirus iyo wax wal oo mashaakil ah oo dunida ka jira sidoo uga hortagi karaa iyaan insha Allahu tacaala ka hadli doonaa. Ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu inaga dhigay dad bini aadanka ilaahay wuxuu siiyey 2 karti oo culus. kartida koobaad waxaa la yidhaahdaa al-iraada, inay karti leeyihiin wax qabad ah, rabitaan baan u jeedaa iraadadu. kartida labaad ilaahay wuxuu ka dhigay inay qudro leeyihiin ambase karti ay leeyihiin ay waxa ay rabaan ay ku samayn karaan. labadaa shay baa qofka bini aadanka ah duridatan ku anfacaysa. walidaalika waxaa la yidhaahdaa basharku waxay u baahan yihiin siduu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay tabaaraka wa tacaala inay helaan khaaridatu dariiq, barnaamij ay ku shaqeeyaan amba project ay ku shaqeeyaan amba mashruuc ay ku howlgalaan. ilaahayna mashruuca uu inoo sameeyey waa kitaabkiisa qur-aanka haddaan muslimiin nahay weeye. wuxuuna qur-aankiisa ilaahay ku yidhi subxaanahu wa tacaala, qur-aankani waa jidkii ilaahay, qofka jidka ilaahay raacana tabaaraka wa tacaala uu hanuunayaa. walihaada bay dadka muslimiintu weydiistaan allah 5 jeer in ka badan, 17 jeer in ka badan baan u jeedaa maalintii marka ay tukanayaan, ihdina asiraata almustaqiim, ilaahu nagu hanuuni dariiqa toosan. suuratu lfaatixa marka ay sidaa dhahaan ilaahay suuratu lfaatixa dhammaadkeega saabay ku dhaheen wuxuu ilaahay ugu sheegay arintaas xalkeegii bilowga suuratu lbaqara, alif laam miim dhalika alkitaab. marka kitaabka qur-aanka ah maadaamaad ihdinaa tiraahdeen laa rayba fiihi wax shikiya kuma jiro, hudan lilmuttaqiin, dadkana isaga ayaa hanuuninaya khaasatan kuwa ilaahay ka baqaya tabaaraka wa tacaala. marka barnaamijkii waan haysanaa, mashruucii aan kaga baxaynay mashaakilka. qofkii bini aadankana ilaahay baa abuuray tabaaraka wa tacaala. broblemyada inagu meersanna waa broblemyo aad u fara badan, bal waxa weeyaan insaanka iyo mashaakilku waa mataano weeyaan, ma kala maarmayaan. walihaada buu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi laqad khalaqna alinsaana fii kabad, insaanka waxaan abuurnay fii tacab, inuu daalo wa nasab wa juhd wa mashaqa, inuu mashaqo ku jiro. ilaa goorma? suuradda kaluu ilaahay ku sheegay innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqiih. weligaa iyo allaha inta aada nooshahay dadaal baad ku jiraysaa, jihaad baad ku jiraysaa, waxaad ku jiraysaa galab carow baad ku jiraysaa, waaga baryaad noloshaada maaragtay taxadiyaadka iyo defiyada iyo broblemyadaad ka hortagaysaa. ilaahay wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala arrintaasi waxay dhammaanaysaa ayaantaad ilaahay la kulantid ee lagu oofsado tabaaraka wa tacaala. walidaalika wuxuu qoray nin Dale Carnegie la dhahdo oo Maraykana kitaab yaab badan oo noqday kutubtii loogu iibsi badnaa qarnigii 20aad. wuxuu qoray kitaabku u bixiyey daci lqalaqa wabda'i lxayaata, stresska iska daa noloshana bilow. daci lqalaqa, qalaqa iska daa, murugada iska daa, cabsida iska daa, argagaxa iska daa, ka tag. wabda'i lxayaat, noloshana bilow. kitaabkaas wuxuu soo gaadhay
شيخي ويناء محمد الغزالي الله يرحمه. شيخ محمد الغزالي كتاب كيبو أخريي من بدايته إلى نهايته وعلو كتاب وافق الفطرة والنص، وكتاب وافقي دينتا هي النصك إلهي هي فطرة بني آدمك. مركز مقرر رحمه الله كتاب كي أبحيي جدد حياتك، نرش هذا عسبونيسي، نرش هذا جديدي، نرش هذا عسبونيسي. أريتاس waxay ina tusaysaa qofka bini aadamkii anu waxaan idhaahdaa saddex arrimood haddii ay ku dhacaan qofka bini aadamka noloshiisu dib u dhacdaa, stress baa ku dhaca. arrinta koobaad waxa weeye in uu noqdo qof cabsi badan. kasratul khawf tuaddi ila alqalaq. cabsida badani qofka bini aadamka waxay u geysaa stress badan. waa kow. arrinta labaad waa maxay? isku kalsooni la'aanta badani qofka waxay u geysaa qalaq. qofku waa inuu isku kalsoonaado weeyaan. arrinta saddexaad waxa weeye cadamu irtibaati al-insaani biquwatin aclaa tuaddi ila alqalaq. qofku inuu ku xidhnaan waayo quwad ka sarraysa isaga oo basharka oo dhan ka sarraysa, hadduu ku xidhnaan waayo tuaddi ila alqalaq. saddexdaas sababoodba stresska way keenaan. walidaalika dad badan oo Soomaaliya oon aqoon stresska iyo isku buuqa iyo qalaqa aan aqoon waxay ku macneeyaan ilba igu dhacday, ishu wax jirta laakiin way ku macneeyaan wax walbaba. jimba igalay way ku macneeyaan. waxay ku macneeyaan waxyaalooyin aad u fara badan oo inta badan dhici karta na dhici karin, laakiin loo baahan yahay in cilmiyan arrintan la fahmo. maalimaha soo socda ayaan aad uga sii hadli doonaa. waxaan jeclahay markaa walaalayaal maxaa loo baahan yahay si maaragtay noloshan loo wajaho. waxaa loo baahan yahay bini aadamku inuu helo awood uu la tashado. ninkaas Dale Carnegie oo caalim xagga psychologicalka ku takhasusay amba psychologiga amba cilmi nafsiga wuxuu yiri qofku hadduu laba haysto stressku way ka yaraadaan. hadduu haysto marka koobaad arrinta la yidhaahdo, hadduu marka koobaad uu haysto arrinta la dhaho amba arrinta la yidhaahdo amba arrinta loo yaqaano qof uu la saaxiib yahay uu asraartiisa u sheegto. xaas wanaagsan, xaasku oday wanaagsan, walaal wanaagsan, saaxiib wanaagsan, qof kuu dhow oo nolosha wadaagtaan hadduu jiro waxa weeyaan 50% problemyadaadu xal bay leeyihiin. 50% kaleetana adaa isku haya. waxay dhahdaan culummadu, waxay dhahdaan arrinta labaad inuu qofku mu'min yahay uu rumaysan yahay Allah. limaada? lianna mashaakilkiisoo dhan ilaahay buu u dhiibanayaa tabaaraka wa tacaala. walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina baray xadiiskii saxiixa ahaa qofku wuxuu alle ugu dhowaan badan yahay marka uu madaxa dhulka ku hayo. markaana qaminun waxaa u dhowdahay in ducada la aqbale ilaahay aad u barya tabaaraka wa tacaala. idan waxa weeyaan qofku waa inuu labadaa haysto, labadaa rukni. ruknun rakiin oo ah Allah iyo ruknun bashari, rukni bini aadamka oo ah qof aad warkaaga u sheegatid. noloshii markaa way kaa xalsamaysaa. qofku markuu dhakhtarka u tago uu dhakhtar uu ku kalsoon yahay la fadhiisto uu jiradiisa uga waramo, bimujarad dhakhtarku uu dhagaysto wuxuu dhaadhiciyey 50% dawadii waa helay. waxa u haray uun 50% kale uunbaa u haray. sidaana waxay dhahdaa cilmu nafsi tibi, cilmiga psychologicalka ee dhakhtarnimada. ninkan Dale Carnegie la yidhaahdo waxa uu qoray buugan. anu waxaan ku hayn waa buug carabina waan ku akhriyay. buugan waa faranji, ingilishna isagoo asalkiisuba ku qoray. waxaa la dhahdaa comment dominer le stress et le souci. sidee baan uga adkaanaa, uga hortagnaa stresska iyo maxaan ku dhahdaa suusiga, qalaqa iyo murugada. sideen uga hortagnaa? waxaasoo dhan waxaa ka culus waxa weeye waa kitaabka ilaahay. qur-aanka waxaa ku qoran waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka. ilaahay wuxuu ihi qofka dikrigayga aniga ila xidhiidhi waaya, samada cilaaqa la yeelan waaya, nolol khadhaadh buu ku noolaanaya.
haddaba walaalayaal maanta waxaa inii soo bandhigayaa duco yaa badan oo inoo werinayo xadiiska Anas ibnu Malik oo nebiga u shaqeeyey sala allahu calayhi wasalam, isagana ilaahay raalli ha ka noqdo. wuxuu u shaqeeyey muddo 9 sannadood ah. 9kii sannadood wuxuu yidhi mar walba nebiga waxaan ka maqlayay ducadan. waa ducayaa badan. ducadani markaa maxay sheegaysaa? ducadani waxay sheegaysaa wax aad u qurux badan oo inaan sheegnaa. laakiin waxaan jeclahay intaan ducada gelin inaan 2 arrimood ka sheego sida ay maanta dunida ku nool lahay ay uga hortagayso cudurkan coronaviruska amba maaragtay covid-ka 19. waxay aan arkay amba aan arkayaa in ay jiraan dowlado kaga hortagaya awood dhaqaale iyo awood cilmi iyo awood dhaqdhaqaaq iyo kuwa maaragtay intaba aan hayn oo kaga hortagaya caqli aan sax ahayn. walidaalika waxaa la dhahdaa cuquushu waa 4. annagu caqliga bini aadamku waa 4 nooc. caqli waxaa jira wax walba fudaydiya tabsiid ah, waa faasiil, dhibaato badan ma jiraan, waxaan la sheegay waxba kama jiraan. caqliga dad baa ku dhaqma. Isbaaniya ku dhaqantay uu burburiyey, Talyaani baa ku dhaqmay uu burburiyey, waxa weeye Maraykan baa ku dhaqmay uu burburiyey. Maraykanna 2,000 oo qof baa maalintiiba dhimata. marka waa mashaakil weyn. caqligooda waa caqliga labaad waxaa dhadaa caqli mu'aamaraati. war arrintan waa laga dambeeyaa gaala ujeedo kale ha dhegeysanina. dad fara badan baa waxaa aaminsan oo marka su'aal la weydiiyo war cudurkan ka waran lagu dhahdo waxay leeyihiin anaka naguma dhacayo, waa mu'aamaraad, waa balaayo, waa maxay. waxaas bay in badani ku sheekeynayaan. marka taasina inaan maaragtay dad badan bay dhabarka ka jebisay oo ay wadanada muslimiintu ugu horeeyaan. caqliga saddexaadi waa caqliga khuraafiga ah ee cilmiga rumaysniin ee wax khuraafaad iska dhaadhicinaya. waxa haddii la isku dardaro la cuno cudurka waa laga bogsanaya. dhakhtaradii ugu waaweynaa adduunkuna waxay leeyihiin dawo weli haadaa lama hayo. bal waxaa intaa ka daray ilaahay baa qur-aankiisa inagu yidhi tabaaraka wa tacaala war ahlu dikriga takhasus walba ahlu dikrigiisa weydiiya. arrin walba ninka ku takhasusay baa la weydiiya. dhakhtaradii maaha dhakhtarada geeska afrika fadhiya maaha, dhakhtarada caalamka dawada soo saara ayaa le weli haadaa dawo ma hayna. bal nin Maraykan meel dhigto wuxuu lahaa waan baranaynaaba cilmigan weli haadaa cudurkan waan baranaynaa. marxalatu tacallum baan ku jirnaa. waa caqli khuraafiya. waxaan kaloo arkayay nin dadka biyaha ku rusha oo Soomaaliya jooga oo maaragtay inuu lahaa war dhulka Soomaalidoo dhan anaa dawadii haye ha la ii yimaado anaa dadka daweynaye. waxaa u jawaabay oo si fiican ugu jawaabay oo aad ugu qanacsanahay jawaabta uu bixiyey Sheekh Barbaraawi xafidahullah oo si cilmiya oo xadiisaantii iyo maaragtay diintii u sheegay oo ku yidhi war waxaasi wax maaragtay marka dawo la sameynaya sidee loo sameeyaa, haddii dawo sharciya tahay iyo haddii dawo tibiya tahayba intaana isaga ayaa naga filan. waxa kaleeto oo jira caqliga afaraad waa caqliga cilmiga ah, waa caqliga sayniska, waa caqliga qur'aanku sameynayo, waa caqliga nadarka ku dhisan iyo baxsiga baarista ku dhisan. waa caqliga weeyaan. caqligaas waa caqliga ay qaadatay dowladda Turkigu oo dowlad muslima ah oo ururka caafimaadkii adduunku uu ammaanay uu yidhi wadanka qura ee cudurka si raganimo leh uga hortagay Chinaha dabadii waa Turkiya. Yurub lambar 1 waxaa la siiyey Turkiga. waxaana waxa le maaha aniga iyo adiga iyo inan yar iyo maaha daacadiyo, waa ururka caalamka ee caafimaadka. waxaa dhahdaana walfadlu maa shahida bihi al-a'daa. iyadoo cadow maahan ururkaasi waxa ay dadka kale ku qiraan waa fadli weeyaan. waxaan aad ula yaabaa sida Jabuuti iyo Soomaalidu ay uga hortagayaan dagaalkan. waxaan daawanayay maalin dhaweyto madaxweynuhu falaxalanaya Jabuuti, dadkuna waxay ku falaxashaan ma haysto. waxaan daawanayay wasiir sport aqalkiisa ku ciyaaraya oo alaabaha ugu waaweyn ee yaala meelaha sportiga lagu sameeyo ay guriga u yaaliin, dadkiina waxay cunaan bay leeyihiin. waxaan kaloo ka yaabay in la yidhi dadka boon ha la siiyo 10,000 oo faran ah. waa wax maaragtay aan gaadhayn $40 wax inkaas ah. 10,000 oo faran reer dhan oo 5 qofa, reer dhan oo 8 qofa, 10,000 oo faran oo boona ha la siiyo baa la yidhi. reerkaasi wuxuu ku noolanayaa 10,000 oo faran. Turkigu muxuu sameeyey? waa example waxaan soo qaadayo. mithaalka waxaan u soo qaadanaynaa Djibouti oo kale. صندوق بجيبوتي فرتي انا شاغay صندوق la furay inteedii furi ka hor, laakiin صندوق wadani hala furan dhig. صندوق waxa la furay dawladdu ay leedahay, dawladdu ay ku gurayso, dawladdu ka guranayso, laakiin صندوق national ah
oo ummaddu ay wada leedahay baan rabnay sanduuqii lama furino sanduuqaa baa la furay lacagaa lagu shubay lacagtii lagu shubay hagay tagtay waa su'aal weeye dadkiina way gaajoonayaan way cabaadayaan way haraadayaan way ooyayaan baynamaa turkiga madaxweyne Erdogan wuxuu yiri 7 bilood lacagteedii baan tuuray dadkuna ha ku daydaan waxaa la ururiyay 1 milyaar oo dollar 1 milyaar oo dollar markii la ururiyay dawladuna budgetkii bay ka soo qaaday lacag inta leg way ku dartay markii labadii lacag la isku daray maxay samaysay iyadu way isbadbaadisay Talyaani bay wax u direen Spanish bay wax u direen Palestine bay wax u direen waxay wax u dirayaan maxaan ku idhaahdaa wadanada ay waxaystaan oo dhan ee dunida wadan kasta oo ka soo codsaday u dirayaan waxa weeyaan waxa la qaybinaya raashinkiiba guryaha dadka lagu geynaya kamaamaadkiiba guri walba 5 xabadood oo lacag aan ahayn loo soo dhigaya waxay bini aadanku u baahnayeen dariiqadii baa la dhigay falaxalkii oo cilmiyeysan waxaa la dhigay tacqiimkii dadka taglaalay oo ka celinayay mashaakilka ay dhex marayeen dadku yaa meel walba la dhigay markaas baa wax walba la sameeyay waxaas oo dhan waxay ka dhalatay lacagta meesha la dhigay ma aha 10,000 oo faran oo dadka la siiyo bini aadankii baa lagu badbaadiyay lacagtii la ururiyay xaqana lacagtii la ururiyay dad baa loo dhiibo joobkay gashay Mareykanku markii maalintii dhaweyto ay shareen iyagu ay xoolihii bini aadanka ay dhahdeen sideen uga ilaa Trump ilaa lacagtii la gooyay ee la soo saaray lacagtii la gooyay ee la soo saaray ee meesha la dhigay ee Mareykanka uu soo saaray 2 trilyan oo dollar waxa la yiri lacagta waa in uuna Trump gacanta ku dhigin waa lagu daray xeerka lagu daray Congress ka soo baxday waa in ciyaalkiisa laga ilaaliyo waa in islaantiisa laga ilaaliyo waa lagu qoray yani waa wax raacsan arintaasi arin cajiib weeyaan yaade qori oo waxa oran karaya waxaan kaloon ka yaabanahay Soomaalida dadku bini aadanka ficlan guryaha gala lama oran karayo meeshan gaajo taala gaajo iyo waxa yaala iyo maxaan ku dhahdaa coronavirus maxaa la yeeli waa in xal la keeno horta mamnuuc waa in laga dhigo in maqaaxiyaha la fadhiisto oo dadku maqaaxiyuhu sidii uga sheekaystaan ay dhahdaan waxani wax jira maaha waa ka qofkii labaad baa dhintay Muqdisho wayna beeraysaa dhimashadu arinta saddexaad ee in la sameeyo wax weeyaan in ay dadku bartaan kala duruga arinta kale in aan la isa salaamin wali hadda waa la isa salaamaya wali hadda waa la ismu caanaqeynaya waa la isdhukanaya wali hadda qaar baa rumaysa waa yaqiin faasida ilaahay baan ka aamin baxnay haddaan sidaa yeelo waxaas oo dhan bay qaar rumaysayin waxaas waa in cilmiyan loola dagaalamo oo dadka lagu qanciyo oo diinta loo sheego waa muhiim laakiin dadka lama oran karayo guryaha gala oo maaragtay ku gaajooda oo ha soo bixina xal looma haysto Djibouti bay noqonaysaa marka taasi xal ba noqonaysa waa in la keena xal u qalma wadanadeenan oo socon karaya ikhwani fillah intaas waxaan uga jeeday inaan fahano problemku inta uu leeyahay annaku waxa weeyaan waa inaan ka hortagno mashaakilkan inaan guryaha ku ekaano inta badan inaanan bixin haddaan Afrika joogno inta badan hadduu qofku shaqo tagay shaqadiisa aado oo distashka ilaaliyo kala durugsanaanta ilaaliyo inuu ilaaliyo maaragtay inuu gacmihiisa wax ku sito inuu falxalka badiyo marka uu gurigiisa wax yar uu soo heli ku soo noqdana oo inta kale una bixin qofka wadanadan la damaano qaaday noloshooda ku noola waa inuunan gurigiisa ka bixin weeyaan waa inay dadku xaafadahooga ku ekaadaan waa muhiim jiddan waa waana muhiim ah markaasi waa inaan gudaheennana dhisno ilaa marka qofku caajisaya uu isweydiinaya stress baa ku abuurmaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiiskan Anas ibn Malik oo Bukhari iyo Nasa'i warinayaan iyo qirgoodba ayuu inoo warinaya xadiiskan waa xadiis cajiib ah ducooyinka nabigu khasaa'is bay leeyihiin waxay kaga duwan yihiin ducooyinka dadka kale ay ku ducaystaan ducooyinka dadka kale ku ducaystaan way iska ducaystaan laakiin nabiga ducadiisu laba shay bay lahayd horta qalbigiisa ka soo baxaysay labo reality-ga waxa ku haystana uu kaga jawaabayay ilaahay wuxuu weydiisanayay waxa uu karayo inuu sameeyo waxa uu karayna inuu ilaahay ugu daro tabaaraka wa tacaala nabigu muxuu yiri calayhi salaatu wasalaam xadiiskan waa xadiis afar arrimood oo laba ah ilaahay uu ka magan galaya nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri Anas bin Malik in badan ma nabiga la shaqeeyay oo la socon jiray waxaan markasti uu meel fadhiisto amba uu dhibaato in haysanay waxaan maqli jiray isagoo ku ducaysanaya ducadan soo socota wuxuu oran jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam Allahumma inni ilaahu anigu acuudu waxaan kaa magan galay bika adiga min alhammi baan kaa magan galay hammigu waxa weeyaan waa stresska waa humuumta waa waxa aad ka cabsoonaysid mustaqbalka maad dhimani maad gaajooni ma cudur baa kugu dhici maad haraadi ma lagu dili
maa lagu xidhi maa lagu maaragtay maxaa lagugu samayni maxaa dhici ciyaalka maxaa ku dhici xaaska maxaa ku dhici cudur baa la sheegay maxaa samayn alhumuum walqumuum waan kaa magan galay buu ilaahu ma rabo waxaas walxasan iyo inaan murugoodo murugadu waa maxay wax mustaqbal maaha waa wax soo dhacday taariikhda kugu soo dhacday oo kaa hadhila walidaalika marka loo taga dhakhtarada iminka psychologicalku maxay ku weydiiyaan haddaad tira stress baan leeyahay maxay ku weydiiyaan su-aal bay ku weydiiyaan waxay odhan maxaa soo martay taariikhdaadi bal ka sheekee maxaa dhibaato kugu soo dhacday maxay rabaan waxay og yihiin inuu jirto meel dhahdo allaa shucuur oo waxa dhan ee bini aadamku ku ururiya meel oo hadhow toole qofka noloshiisa bedisha walidaalika waa in arrintaa la saxo nebigu sal slam hortood buu sheegay muxuu yihi alhamu walxasan uu isku xidhay taariikhda waxa ku soo maraayi wuxuu abuuraa stress xasanku wuxuu abuuraa stress u abuuraa walidaalika ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi awliyada ilaahay maruu ka sheekanaya alaa ina awliyaa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ilahay wuxuu yihi awliyada ilaahay ma cabsadaan liana alkhawf yuaddi ila alqalaq waa naga sheegnay cabsida badani waxay keentaa argagax argagaxuna wuxuu keenaa stress marka maxaa yidhi iyo suusii buu keenaa maxaa lagaa yidhi maba murugoodaana murugana male taariikhdana kama cabsoodaan waxaaba igu soo dhacay meel igu soo noqoy wixii ma cabsoodaan khalaas ilaahay bay ku xidhan yihin tabaaraka watacaala marka maadaama aad sidaa tahay oo nin awliye aad tahay awliyaduna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa ilaahay rumeeyey alla ka cabsanaya tabaaraka watacaala haba kala sarreeyaan allahuma inii acuudu bika min alhami ilaahu waxaan kaa magan galay alham inaan ka baqa mustaqbalka walxasan iyo inaan ka baqo wixii soo maray oon murugoodo labadaba waan kaa magan galay waa kow waxaa dhahdaa alamraad annafsiya ilaahay wuxuu nebigu ka magan galay cudurada psychologicalka psychologiga amraadda nafta ku dhacda amraadda qofka u keenta alistiqaala inuu nolosha ka baxo amraadda iyo jirada qofka u keenta alistislaam inuu nolosha isku dhiibo amraadda iyo jirada ka keenta inuu qofku inhizaam inuu jabo uu burburo amraadda iyo jirooyinka psychologicalka ee keeni kara inuu qofku ishaysan waayo cadamu tamaasuq qofku inuu ishaysan waayo ilan qofku hadduu kala baxo waa probleme hadday naftaadiina gooni noqoto caqligaagiina meel kala tago jirhkaagiina meel kala tago mushkila dhacaysa marka allahuma inii acuudu bika min alhami walxasan ya rasuul allah ma acdamaka waa macalin nabigu sal slam arrinta labaad wuxuu yihi wa acuudu bika ilaaha waxaan kaa magan galay min alcajzi walkasal ilaahu waxaan kaa magan galay cajzigu muxuu yahay marka la macaninayo af carabiga waa cadamu lqudrati cala alcamal inaan howlgabeen noqdo oon shaqaysan waayo oon wax qabsan waayo waan kaa magan galay kasalkuna waa maxay dadka caadigii caajis kaslaan waa isku mid ba u tahay laakiin saa maaha kasalku waxa weeyaan isaguna waa cadamu lqudra cala alcamal soo ka hormeen kana waa cadamu lqudra cala alficil cadamu liraada cala alficil waa adigoonan ficil inaad qabatid badoonin waa volonteegi iraado ma lihid rabitaan ma lihid kasalku waa rabitaan la-aan walidalika ibn lqayim kitaabkiisa iclaamu almuwaqiciina can rabi alcaalamiin kitaab cadiima oo 3 mujalada raximah llah wuxuu ku yidhi caajisku laa yastatiicu alxiilata meel uu broblem uga baxa ma haysto dhibaatadu markay hesho iyada unbu ku dhex noolaanaya qafaska unbu ku dhex jiraya kaslaankuna muxuu yihi laa yuriiduhaa maba raboba inuu ka baxo marka kaslaanku ma rabo caajiskuna karti male marka nebigu eeg sal waxa isku xidhan yihiin labadii hore way isku xidhnaayeen alkasal maxaa dhahdaa alhamu walxasan xasankaa keenaya hamiga way isku xidhnaayeen labadana way isku xidhan yihiin cajzigu iyo kasalka cilaaqa ka dhaxaysa see cilaaqa uga dhaxaysaa qofka aanan rabin inuu isbedilo ma rabi karo inuu wax qabto ma samayn karo awood male wax ku qabto idan alkasalu isagaa u sabab ah maxay alcajzi dhinaca kaleetana alxasanu isagaa u sababa alham saabaan u kala nabigu sal slam isku xidhay calayhi salaatu wasalaam waa mucjizo wuxuu rasuulku sal slam wa acuudu bika ilaahu waxaan kaa magan galay min aljubni fulanimada walbukli iyo gacan adayga aljubn inaad fula tahay wax kasbaa ka cabsoonaysid war dadka xaqaaga doono waa lay dili war ka hadla arrintan waa laygu dhaawici war qofkan iska celi maya ma karayo war waxaan samee maya
يجب وفله لبا وبخل أمة لبدا شيء كأرته أمة جبانة وبخيلة لا تقدر على الثبوت على المقاومة أمة لبدا سيكون كلمان فلنمو إيه يكون كلمان محاكو هذا بخيل عن أديجي كرتو ما يشان إني مقاوميان دتك وحي دباتك داعية وأريد صدحات مركا لبدا سنة علاقي ليهين وحال هذا وأمراض اجتماعية وأمراض كل عدا بلشدها كي هو نفته كل عا كي لبا نوحه كل عا فردي قفك جبني يبخل يقولون وحي كل عان بلشدها كل عان ولذلك أبو إله إن برا قرانك وأنفقوا بحية مما رزقكم الله وحو إله إني أرزاقي مما جعلكم مستخلفين وحو إلهي إني ديبتي بحيا إلهي تبارك وتعالى وحو هذا كو النفتو ذا يمالكو كو جهاتمية ولما النفط مالك الورسية لماذا؟ لأن إلهي وحو لدى قالمية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ذاتك كاد كان يبخيل لماذا؟ كو سويلي بانين بر إلهي تبارك وتعالى وحو حديث أفراد وحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك وحن إله كاما كان قليل من ضلع الدين وقهر الرجال هل كان هو عجيب أما حديث رواية كله من غلبة الدين وقهر الرجال ضلع يقلب واسكميد إنه دينكو دك دقالها إنه نرشو إيجا جبته أو نرش هذا بأن كل سدين أن أبني حياتي على الدين نرش هذا بأن كل سنتسي ودنتهي بقول كيف بقول دين إن كل سنتهي أو أن نقضه قف مارتي لليه ولذلك وحال هذا استعبادكو الدونسيغو إيا استحمارك دادك إلا مردميريستو إيا استقفالك دادك إلا قفليستو وحي كيمة لبا طريقة دقالها إيا طريقة سياسة لبدي بحديث كباشاقي ضلع الدين وقهر الرجال إيا رقو إيقا أتكاد كلمة القهر وعقلتها إن لقا أتكادو وهو القاهر فوق عباده الرجال استعمارك كأتكادو استبدادك كأتكادو دكتاتيركو وعدو كأتكادو وكجبيو قهرغو وقهر الذات قفك او لابت لغا جبيو هزيمه حضاريه او مسكحدا لغا غوميستو او قلبيغا لغا غوميستو او لو ديدا ميل او كبخبا اذا حديث كان هو عظيم حديث ما اسك هادليون وحو كهادلي سيكولوجيكال وحو كهادلي بولشو وحو كهادلي قفكي بني ادمكا وحو كهادلي دقاليه وحو كهادلي سياسدي marka ayaa oran kara nabi maxamed sallam siyaasi ma ahayn ayaa oran kara nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka hadlayay waxa la fahmeen يا أورك النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء دي سواحة هي دعاء إسكا روحانيون وحاها هي دعاء روحية اللهم يا الله وحو هدنا ويدي سنة مشاكل هايستا وحو دوينيا سيكولوجيكالكي وحو دوينيا وحو شيخة كحرمين دينتين كنيسة معها كنيستها تجين هقولون شيخ أنا إلهي ويدي وشيخ إلهي مكايا قانا مكا قدويا مكا جعليا مصاحب إلهي ليا أنت والشيخ أمام الله هي سواء هذه يا شيخ إلهي هرتيسا اسكميدتي ربما هذا كفي عبا هذا ربما كفي عن كريمه وإلهي وقد وان كرا إلهي با قلني قلوبته وحا كجرا ولذلك محلو باهي كليغا إنا تراديد يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ودود يا عزيز يا جبار كليغي إلهي أدون قفنكو أركين قفنكو مقلين دعاء أخرسو واتكنا بدقل مركا هموم يا أحزان مرغو يا عبسي واتكنا بدقل عاجزنمو يا كسل شقنا كدر waad ka nabadgali fulanimo na haysata oo dad baa jira haday arkaanba qof ay ka cabsadeen way qarqaraanba jubni lama bahlo iyo bakhiilnimo $20 baa la urinaya dad baa la siinaya bay wallahi igu soo noq madax xoqanaya $100 $200 ma bixinay waxba waa bakhiil iyo qalabatu dayn wa qaari rijal in deynku ka adkaado raguna ka adkaadaan waxa dhahdaa Malik bin Nabi wuxuu yiri waa ducaa xadaari ودعو civilization waxay daweynaysaa mushkilaat الحضاره problemyada dadka ka haysata inay horumar gaaraan haddaan inaan horumar gaarno doono afar shay baa loo baahan yahay tamaasuk shakhsi ina is haysatid rabbaan inuu noqdo ilaahay ku xidhan laba maxaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay qof faaciliyad leh ajziya ka salahayn oo faaciliyad leh action leh oo wax qabanaya waa laba saddex waxa loo baahan yahay qof aan fulan ahayn bakhiil ahayn oo mutaharrika dinamika afar waxa loo baahan yahay qof dhaqaalihiisuna xor yihiin istibdaadka iyo isticmaalka la dagaalamayo oo xora afarta marka la helo horumar baa la gaarayaa xadiiska nabigu oo ugu horeyna aan sharxayno waa kaas halkaas aan ka wadi doonaa wallahu ta'ala ala wa alam wa ma satihin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh